waqtigu hadduu qofka ka lumo waa dhib ninku intuu dhalinyarada yahay buu waqtigiisa rasmiga ah haystaa inuu wax badan ka faa'iideeyo walidaalka bay saxaabadu taa dareemayeen waxa kugu filan xadiidka saxiix ee Abdullah ibn Amr ibn Aas ayaa wuxuu leeyahay xadiidka ibn Majah baa warinaya Sheikh al-Albani waa tasxiixinaya saxiixadu ku soo arooriyay Abdullah ibn Amr ibn Aas baa wuxuu leeyahay jama'tu al-Qur'ana faqara'tuhu kullahu fi layla qur'aanka oo dhan baan xifdiyay buu yiri dabeetana cimriga ka faa'iiday buu isleeyahay habeen quran ku akhriyay buu yiri dabeetana nabiga warkii maqlay salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu nabigu ku yiri inni khashitu an yatula alayka az-zamanu wa anta mal Abdullah waxaan kaaga baqayaa buu nabigu ku yiri in cimrigu dheeraado oo aad hadhow daashid yani nabigu wuxuu tilmaamayaa amalka kala joogteeya inuu ugu fiican yahay kala joogteeya inuu ugu fiican yahay deetana wuxuu leeyahay inaad habeen walba sidan u wadi weydaaba ka baqayaa hadhow aad hore u daasho markaasuu wuxuu nabigu ku yiri faqra'hu fi shahr bil ku akhri quraanka bishiiba mar dhamay saxaabigani muxuu ku yiri marka dani astamti'u min quwwati wa shababi ilaahi rasuulkiisiyo buu yiri idaa dhalinyaranimada iyo xooggan ka faa'iideystay daaba soo socotay intaan aan dhalinyaro iyo xoog ahay intaan aan aakhiro shawt waynu jaro aan wax badan qabsado aan ka faa'iideystay hal idaayay buu ku yiri ilaahi rasuulkiisiyo markuu arkay siduu ugu adag iyo nabigu wuxuu ku yiri faqra'hu fi 10 hadaba 10 ku akhri 10kii maalmoodba mar dhamay haddana su'aashii buu nabigu ku soo celiyay isagoo leh da'ni astamti' min quwwati wa shababi ilaahi rasuulkiisiyo idaa aan xoogayga iyo dhalinyaranimadayda ku raaxaysto buu leeyahay istimtaac inuu ninkani cibaadaysto oo intaanu dhalinyaro yahay xooggiisa isticmaalo oo aqli iyo awood wuxuu leeyahay oo dhan u isticmaalo oo aakhiradiisa dhiso ayuu ku tala jiraa inaan waqtigu ka beerdaroobin ama se ka lumin buu ilaalinaya saasi daraadeed buu wuxuu leeyahay waxaad idaa ilaahi rasuulkiisiyo aan istimtaac aan ku raaxaysto dhalinyaranimadayda iyo xoogayga markaasuu nabigu ku yiri faqra'hu fi 10 war hadaba 10 ku akhri waa ku soo celiyay haddana wuxuu leeyahay da'ni astamti'u min quwwati wa shababi ilaahi rasuulkiisiyo idaa aan wali xoogayga iyo dhalinyaranimadayda ka faa'iideystay idaa buu leeyahay markaasuu nabigu suu waday nabigu wuxuu gaarsiiyay inaanu dhaafin maxay waqti inta ka yar inaanu ka badinin waxa la faray في 7 بالليل تضبط آخر مركزه هذا هلكي كبلا بي دعني أستمتع من قوتي محا ماشي كم مغضى مرك كم مغضى يعني الصحابة السيدة وقت جودة وفكريه سيدة ودريم يدلين رنمدا وقت جودة إنه كفائديه سيدة ودريم إنه كفائديه آخر دي سينو دسه سيدة ودريم عمر يدلين رنمدا يعني وقت وفي عيه وأنا كلمن ودلين رنمدا واحد كو قرن كرتاه siday u fiican tahay ahlu jannaha la yiri waa dhalinyaranimo soo ahlu jannaha lama rabin inay raaxaystaan raaxa kama dambaysta waxa uu nabigu tilmaamay in ilaahay ku oranayo inna lakum an tashubbu fala tahramu nimcooyinka la siiyay marka la tilmaamayo waxa la leeyahay waxa alla idin siiyay inaad dhalinyaro ahaataan oo idan waligin gaboomin ba alla leeyahay subhanahu wa ta'ala idan dhalinyaranimadu waa nolosha inta ugu macaan waa nolosha inta ugu xoog badan waa nolosha inta ugu tayada badan leh waa nolosha inta ugu waxqabadka badan leh sida daraadeed ba ahlu jannah la yiri dhalinyaro ay ahaanaya ahlu jannu odayal jannada joogi maayaan iyo da'wa weynitoona dadka ahlu jannaha oo dhamay waxay wada ahaanayaan dad wada dhalinyaro ah idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay inuu cimriga ka faa'iideeyo gaar ahaan waqtigiisa dhalinyaranimada inuu ka faa'iideeyo